waxaa caawa garoonka diyuuradaha ee Oslo Airport Gardermoen lagu soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Maxamed Bixi Yunis waxaa ku soo dhaweeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Norway isagoo muddo 3 maalmood ah ku sugnaan doona dalka Norway isagoo shirar la yeelan doona wasaaradda arrimaha dibadda iyo maalinta Talaadada oo la yeelan doono kulanka jaaliyadda waxaana hadaladiisii kamid ahaa marka ugu horeysa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa jaaliyadda reer Oslo sida diiran ee walaaltinimada ay soo dhaweyseen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay halkan waxaan imid hawl dawladda Norwegian-ka ayaana soo casuntay wasaaradda khaarijiga iyo wasaaradda kale insha Allah hawsha berita noo bilaabmaysaa dad fara badan baynu arranjinaan la kulanno ayaga martiqaadka noo soo fidiyay marka aad iyo aad baan mar labaad idinku mahadnaqayaa insha Allah waxaanu sahnaa wada la socodsiin markaan dhameysano الحاسدي وحسر وما بلغنا الحاسدي وحسر وما بلغنا مرضي شرف الرسالة من كادنا حاجقات حوم الحمستي زادها حسيلو وعمو نفضا مرضي شرف الرسالة من كادنا حاجقات حوم الحمستي زادها حسيلو وعمو نفضا حبيبي حاسكيو حلقي ليدوري حلقاني قدتيو وحان نغدور عين وحان نغدور عين حور عين حبيبي حاسكيو حلقي ليدوري حلقاني قدتيو وحان نغدور عين وحان نغدور عين حور شرطة لبي